wax miisaan oo ii kordhay ma jiro weligiina ma naaxin buu yidhi arrinkaasna aad buu magaranaysaa yani dhibaatay ugu hayaa hadda maxay nin weyn oo magaranaysaa hadda guur u diyaar ahanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة الصومالي هيلث لايف ستايل وين channel كذا على بكرة حديدان وحي عافمات كبسية نينا أنا صاحبنا هاي أو مصاري أيا وحمالي الويدي سؤالي دكتور وبحان كعبنا يا إن أنا ميزان كي كردين أو أنا محدي تطفين يرى هاي يعني أنا هاي محدي سكالتون صوص عنيا بركة واحد يشيك تابولي دكتور عنتوين أنا محدي عنو oo maxay yani miisaanka kor soo qaada markastoo muraad isku eego aniga baa iska shaqeeyay xanuunsanaya in kalaba marka waxaan ku weerinayo waxaad ii sheegtaa intii aad garaadaysatay magaranaysa hadii aad aqliga lahayd miyaad yani aragtay adoo marnaba naaxay oo magaranaysa hay miisaankaagu si fiican soo kordhay mise waxa jirtay adoo waqti hore caadi ahaabad hadda dhawaanu magaranaysa miisaanku ka dhacay niyo wuxuu yiri waan u garaadaystay intii aan maxay noolaaba saas u manhaa haddaan waxaan leeyahay hadii kalaba marnaba maxay miisaankii kor soo bixi maayo cuntadan doona haddaan ku rido magaranaysa wax miisaan oo ii kordhay ma jiro weligiina ma naaxin buu yidhi arrinkaasna aad buu magaranaysaa yani dhibaatay ugu hayaa hadda maxay nin weyn oo magaranaysaa hadda guur u diyaar ahanahay magaranaysaa ilaa hadda 30 waan kusoo dhawahay weli ma guursan waxaan u baahanahay niyo inaan waxoogaa magaranaysaa shape-kayga ama muuqaalkayga wax ka yar bedelo oo magaranaysaa waxoogaa dhafooradan iyo magaranaysaa baxsan ay dee kor soo yarkaan marka ii sheeg buu yidhi doctor oo ila magaranaysaa hawlgalo waxaad ii sheegtaa cunto aan markaan sidaa ugu rido magaranaysaa dareemi karo dani waxay tarayso oo dee magaranaysaa bil gudaheed dhowr usbuuc gudahood aan calal aqal magaranaysaa aan dee noqonayo qof magaranaysaa xuusnimadii ama caatinimadii ka soo yar bayray iyo su'aashii aan hore ku weydiiyay baan ku idhi waxay ahayd batri inaad weligaa u garaadaysan adoo marna naaxin haddana waxaan ku arkayaa inaad aad u dhuuban tahay aad wax caato u tahay marka aniga waxaa jira baan ku idhi dad laydhaa high basal metabolic rate iyo dad laydhaa low basal metabolic rate dadka high-ga ah waxa weeye dad iyagoo iska fadhiya yani ay energy magaranaysaa jirkooda ku jiray iyo faadkii jirkooda ku jirayba ay gubanayaan hadda isagoo iska fadhiyo aan waxba qaban ayaa waxa uu la mid yahay nin exercise ku jira oo kubad ciyaaraya energy uu bixin lahaa ama maxay yani magaranaysaa sonkortii iyo haydii uu gubi lahaa ayuu kan isagoo gurigiisa iska fadhiya amaba hurdaba ayuu gubaya marka dadka noocaas high basal metabolic rate ka weligood ma naaxaan haddii magaranaysaa yani maxay samada waxa yaaliyo dhulka wax yaalana ay cunaan wax uu ku tarayaan ma jirto waxa weeye keliyata in uu maxay soo iska ilaaliyo inuu maxay gaajo ku joogo waayo isagoo magaranaysaa iska fadhiya mar haddii yani jirkiisu hoos u socdo oo wixii magaranaysaa energy ku jiray wixii faada ku jiray wixii sonkore ku jirtay wixii ay hoos u socdaan inuu magaranaysaa gaajo isku eegto waa maxay waa mid laga rooyahay magaranaysaa marka mar kasta waxa maxay isaga wax u taraya cunto proteinkeedu aad u sareeyo calorieskeedu aad u sareeyaan cunto maxay haydheedu ay fiican tahay kulliba qofkan oo kale maxay yani wixiisu gubanayaan yani jirkiisu storage ma galiyo wixii ma ururinayo ee uu gubaya markaas waxa la gudban cuntadii magaranaysaa oo mar kasta ku ilaalin lahaa in magaranaysaa balance ku magaranaysaa aanu hoos u dhicin taas waa taas dadka daba low basal metabolic rate ka ah waxa weeye dadka iyagoo maxay magaranaysaa even xataa aan cunto badan cunin haddana mar kasta maxay weynaada magaranaysaa yani jirkoodu mar kasta miisaankiisu bato hadiya jeeraale magaranaysaa la ildaran in magaranaysaa ay overweight noqdeen marka labadaba maxay waa dhibaato laakiin middle-ka dadka ah baa maxay fiican de wixii magaranaysaa jirkiisa galay haddii aanu gubin uun magaranaysaa oo de storing galayo haddii gubina de already ay hor u baxayaan taas waa taas waxa weeye qofkii markaa yani aad u xuusa weligiiba xuus ahaa marnaba maxay yaaban inaan waxba jirkiisa ku kordhayn inuu maxay conceptiga ah haysto in uu yahay high basal metabolic rate dhakhaatiirta qaarkood way baaraan yani waxa laga qaadaya magaranaysaa hormoonada qaarkood oo aad u nashada magaranaysaa aad maxay u sareeya basal metabolic rate kaaga maxay aad loo eegaya maxay jirkaaga intuu gubayo per hour wixii maxay ka baxaya wixii ku soo galaya wixii maxay jirkaaga maxay uu safe garanayo dhan baa la isku qiyaasaya waxa lagu soo siinaya chart dhan inta leeg oo waxa ugu dhimi ku jira magaranaysaa marka waa lagu diagnose garanaya in aad tahay dadka noocaas ah ee aan weligood naaxi doonin sida marka ay magaranaysaa yani noloshooda maxay ula jaan qaadayaan ba markasta magaranaysaa la gudboon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh